السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة channel كمالما فضلا سبسكرايب صار هدي أتمركي كوه رئيسي ورقم جنبلك سيكوسو جيران مقالة عن هالكن سوق لنا كسر دوادة قصة دينية وعادكو عبرة قاعدة دونتو قصدان وقصة دينية وكل عدويل مسلم كاس أو كلهم سنة jidka rabbigiisa kadibna ilaahay oo ku soo hanuuniyay riya cajiib ah wiilkan wuxuu la noolaa qaar kamid ah qaraabadiisa wuxuu ahaa mid ka sii jeeday waxyaabaha Alla amray kuna sii jeeday waxyaabaha Alla naga reebay oo ah macaasida habeenada kamid ah ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qaar la doonay wuxuu hurdadiisa ku arkay isagoo mugdi ku dhex sugan haddana oo u soo laabtay hanuun qisadan waxa ka sheekeeyay wiil ay qabsatay wuxuuna leeyahay sidaan habeenada kamid ah ayaa waxaan tagay firaashka ama joodariga sida caadada ii ahayd si aan u seexdo markii aan tagay meeshii aan seexan lahaa ayaa waxaan dareemay wax bini aadam u raad eg oo misana igu soo dhawaanaya waxaan Allah ka magan galay shaydaan dhagartiisa waan iska seexday waxaan hurdadii ku arkay shay ii dhow oo haddana aad u yar misana samada ka soo dhacaya dhulkana ku soo socda waan yaabay waxaan cadeyn waayay ama aan sifeen waayay ama aan kar waayay shayga waxa uu yahay waxaan arkay shaygii yaraa oo isku bedelay naar weyn subxaanallah oo igu soo hoobanaya waan fariistay anagoo walbahaarsan isna aan raadinayo shakhsi aan u kaashado masiibadan isoo haleeshay meel aanan ka arki karin ayay iga dhawaaqeen waxay igu yiraahdeen tani waa saacadii qiyaamaha bilowgeedii maalintii qiyaamaha waa ay dhacday tani waxay kamid tahay calaamadii ugu horeeyay waan argagaxay waxaan xasuustay wax walba oo acmaal ahaa ee aan hormarsaday hadday wanaagsanaan lahaayeen iyo hadday xumaan lahaayeen waxaan bilaabay qoomamayn midii ugu darnayd waxa isoo food saaray cabsi iyo walbahaar waxaan isweydiiyay intee hawshan ka bilowdaa sidee ku badbaadi karaa waxaan maqlay mid dhawaaqayo oo leh maanta ma ahan maalin ay qoomameen wax tarayso waan laga abaalmari doonaa wixii aad qabatay xagee baad ku sugnaan jirtay xilliyada salaadaha maxaad ahayd mid qabta markay ku yimaadaan amarada Allah ma ahayd nin wanaaga qaato xumaantana ka taga oo ka fogaada waxaad ahayd mid hilmaamay rabbigiisa waqtiyadaada waxaad ku lumisay ciyaar iyo heeso maantana waxaad imaan adigoo ilmeynayo kadib markaad aragtay cadaabkaaga waxaa sii siyaaday shalaaygaygii kadib markaan maqlay mid iigu yeeraya cadaabka adag waan ilmeeyay ilaa ay ilmadii iga ilaatay ama iga dhamaatay laakiin waxba iima tarin isla daqiiqada ayaan ka toosay hurdada waxaan aagay nafsadeyda waa rumaysan waayay riyadan waxa isoo wajahay cabsi hor leh mana ka suulin inaan baqaayo nafsadeyda ayaa waxaan ku eri wallahi baan ku dhaartay tan waa digniinkaaga imaatay dhanka Allah subhanahu wa ta'ala maalinta la isoo saari doono waan lama huraan maxaad Allah u caasisay ayaan isweydiiyay miyaadan ahayn mid dhex dabaasho wuxuu Allah xarimay su'aalo fara badan ayaa ku soo degdegay maskaxdeyda umana helin ilaa hal jawaab oo qura taasoo ahayd inaan Ilaahay u laabto si maalinka weyn aan u badbaado ee qiyaamaha waxaa bari waagi waxaa la gaaray salaadii subax waan tukaday nafsadeydana waxay dareentay raaxo iyo wanaag subaxdaas waana soo baxay waxaan koray gaarigeyga waxaan eegay gudihiisa waxaa ka buuxo canjaladihii heesaha waan iska saaray dhammaantood waxaan ku tuuray meelaha qashinka lagu tuuro ee loo yaqaan qashin qubka waxaan raadiyay canjalada islaami ah oo waxtar ii leh xaaladda ayaan ku sugnaa maalin kastana waxaan ahaa mid ku sii dhawaanayo wadada hanuunka badanaa tiro dad ah oo ku lunsan dhadhalaalka dunida ee beenta ah taasoo hilmaansiisay maalin aan la hilmaami karin waa maalinta qiyaamaha maalinka oo shakhsigu ka cararayo walaalkiis hooyadiis aabihiis xaaskiisa iyo caruurtiisa waa maalin maalka iyo caruurtaba aan waxba taraynin ilaa ruux Allah ula tago qalbi wanaagsan iyo camal suuban mooyaane walaalahaygiiyow miyaysan ahayn inaan Allah subhanahu wa ta'ala u laabano inta ayna geeriyoon koor wixii aad hormarsatay ayaana maalinta qiyaama aad ku badbaadaysaa oo kaliya midaasna waa camal wanaagsan oo saalix ah oo Allah agtiisa raali laga yahay
waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan la wadaag saaxiibada oo shargaray si ay uga faa'iideystaan mahadsanidin